بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halka kan ka salaamaya ummadda Soomaaliyeed waxa kale oo aan salaamaya ummadda reer Awdal waxaan tahaniyadeynayaa haweenka iyo carruurta geesiyaasha ee reer Lascaanood ee gidaarkii ururada ka samaysna ee cabsida ahaa dhagax iyo dhiigooda ku burburiyey ee jabiyey ee muujiyey itaal darrada baadilka inaanu baadilku waxba samayn karin waxaan markaa ka codsanayaa salaadiinta sharafta leh ee reer Buuhoodle iyo maxaan ku dhahdaa waxgaradka dumarku intoodii way qabteen iyo carruurtu intiinii baa hadhay baadilkani wuxuu ku baabi'i karaa haddii aad samaysaan dawlad muhiima oo lugaha ku taagan oo aad baddana qolada maakhirna soo dhoweysaan ee walaalihiina oo aad maamulkana qaybsataan oo aydan ka dhigin maamul maxaan ku dhahaa had iyo jeer qabiil boqortooyo ka yahay sida ka Jabuuti sida ka Jigjigaad sida ka maxaan ku dhahdaa Garaawe iyo ka Hargeyso isagu ugu badaran oo cunsuriya kaas waxaad ka muhiimsan in aad kaltanka madaxweynenimada aad qaybsataan 5 sanadood boqolo oo aad nidaamkiina sida ku dejisaan marka laakiin sida ugu degdeg badan waa inaad u samaysaan maamulka berri sabtida ayaad shiraysaan waxa weeye shirkaasi waa inuu ka soo baxdaa dawlad degdega waayo baadilkani idinkama tegayo haddaydan dawladda samayn waxaan u soo noqonayaa awdal waxa weeye waynu is ognahay inagu kolley odayaashu dee meel walo joogaanba waa odayaal laakiin yaa hoggaamiye odayaasha sidaa iminkaba aad ugu cibro qaadateen odayada waxaa hoggaamiye dhallinyarta dumarka carruurta ayaa ficilka tusa oo khasba sidaa aad iminka u arkaysaan marka waxa weeye iyagan reer Awdal waxaan leeyahay qayrkayn waxa uu karo idinkuna waad kartaan waxay jirta maamaha reer galbeedoo tidhaahdaa waxay tidhaahdaa I have to die fighting rather than living on my knees waxa weeye waa inaan dhintaa ayaa ka qurux badan inaan jilbahayga anoo nin hoos joogo ku noolaado waxaan markaa idin leeyahay hadda ayaa la idinka rabaa maamulkaasi baadilka ee quraarada ka samaysan wuu jajabay waana tacbaan waxana weeye waana goortii idinkuna aad inta hadhay israacin lahaydeen waxa weeye waxa aad maxaan ku dhahdaa idinku weliba ku sii nasiib badantihiin war idinku bad baad leedihiin magaalooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliduna way idinku dhow yihiin oo la baacmishtareyn kartaan Hargeysa marka laga reebo waxaad leedihiin Jigjiga Diridhaba maxaan ku dhahdaa Jabuuti iyo Boorama intaasoo dhaniba waxa weeye magaalooyinka idinku dhow ee aad gaari kartaan xataa Harar ku soo daro waxa weeye dhulka aad degantihiin bad buu leeyahay buuruu leeyahay macdan buu leeyahay waxa weeye nasiibkiina inaad ka faa'iideysaan weeye maamul degdegana inaad samaysataan weeye maamulka sidaa ay reerkaasi u samaysanayeen idinkuna inaad u samaysataan weeye cidna adduunyada lama khasbi karo nin buur leh oo bad leh oo meel ku dhunta leh oo dad wax ka soo qaata leh oo dad hubka ka kansada leh siduu u cabsoodaa meel u joogaa marka waxa weeye sida ugu degdega badan leeyna dhaqaaqdaan weeye maxaan ku dhahdaa wixii aad naga rabtaan la idinku caawiyana nala soo xidhiidhaan weeye waa idinka caawinaynaa wixii waran waa idin gudbinaynaa haddaad maamul rabtaan waa idinla samaynaynaa anagu kulley dad waaweyn baa nahay dhallinyarta idinkaa mustaqbalka leh sida ugu degdeg badan maamulkiina samaysta qabiil uma talin karo waad aragtaan sida foolxumada uu leeyahay qabiilka u talinaya marka inaad saa samaysaan weeye inaad degdeg u dhaqaaqdaan weeye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu